بسم الله الرحمن الرحيم أمان أو إذيل ربي بايسكاله ربي أومن كودن أبو ري ربي مالنت قيامها ربي يو أذان كهوس جوغنا ربي يو أذان كالما كاربنا نحريس إينا بدجلو يخركي ساعات صوبنهني محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ما هذنت ربي كذب وحن جعلها عاوة إن اسكردو واجب ودنيادين oo ku wajahan labada gole oo Soomaaliya golaha baarlamaanka iyo golaha duqeytida waxaan uu kamid ahay dadka aaminsan mas'uuliyiinta in loo duceeyo ee aan la habaarin dadka aaminsan in la amaano ee aan la caayin dadka aaminsan in la dhaliilo oo qaladka ay leeyihiin loo sheego laakiin aan la haydaartayn oo aan meel looga dhicin waxaan u arkaa wadadaas inay tahay wadada ugu saxsan oo qalad jira lagu sixi karo hadalkayga caawa ama warqadan furan oo aan rabo inaan u diro labada gol ee baarlamaanka wuxuu ka kooban yahay 5 qodob oo diini ah shanta qodobba waxay ku salaysan yihiin kitaabka quraanka waxa uu ka yiri xaaladda ay maanta galayaan xaaladda ay barita galayaan xaaladda ay si dhab ah 8 bisha u galayaan shanta qodob waxay kala yihiin codaynta laaluushka codka oo la siiyo qofkaan mudnayn codka oo la siiyo qofka mudan iyo xisaabtanka waa la socotaan dadku waxay aad iyo aad u jecel yihiin erayada haddii la yiraahdo waa diini inay af carabi ku dhuuxaan inkastoo aan aaminsanahay biyo sacbadaada loo dhargaa oo afka hooyo uu yahay afka keliya ee xujada aan rabo inaan guto aan ku gudan karo waxaa la yiraahdaa الصوت أو التصويت بمثابة البيعة عضينتو بيعدي بيلامي تاعي ووايي هورا waxaa jiray qofka la dooranaya beeca in la galo beecadaasi waxay ahayd waa ku sii codkayga labo qodobka labaad الرشوة بمثابة شهادة الزور لالوشكو مرخاتي بيناله لمديحي صدح التصويت الحق عضينت ماشا قلدل دقا كتمان الحق ورنتي أول قريي التصويت الخطأ عضينت جفكا أو ميل قلدل دقا وحوي كتمان الحق وقرتي يضوي أدو قرني أنقرسو أفر التصويت الصحيح عضينت الصحدة وأداء العهد والأمانة وأدو قدنا أي عهد أي أمانة اللي هرتيسا أي أمد هرتض أتقاطي شانتا سهدي سدايهين مد مقوي فينا قرآن قوحة أكيري كو مركا ليدهي عضينتو waxay la mid tahay beecada wuxuu ilaahay leeyahay rabbi wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala fi aayada tobnaad ee suuratul fath kamid ah innal ladina yubay'unaka inma yubay'una allah kuwa bay'ada kula galaya ilaahay bay beeca la galayaan yadullahi fawqa aydihim
gacanta ilaahay ayaa gacmahooda kor saaran burjiga ilaahay ayaa burjigooda kor saaran ummadda oo la agaasimaa waa ogolaansho alle khilaafada dhulka oo qof ka mida la noqda waa idankii alla soo baxsho aadan ka soo bilowday meel mas-uuliyad in lagaaga dhiibaa waa mas-uuliyaddii aadam dhulka looga dhiibay maalintii uu alla yidhi innii jaacilun fi lardi khaliifa faman nakata fa inamaa yankuthu calaa nafsih qofkii baycadaas buriya dhumiya la habaaba fa inamaa yankuthu calaa nafsih waxa uu lugoynayo waxa uu hagardaamaynayo waxa uu dabamariyaynayo waxa uu dibindaabiyaynayo naftiisa wey waman awfaa qofkii oofiya bimaa caahada calayhi allah wixii alla uu kala ballamay fasayu'tiihi ajran cadiiman abaal weyn baa alla siinaya afcad oo qeexan waxaan ku leeyahay labada gole baarlamaanka iyo golaha duqaytida maaha dadka inaad ugu fiicnaydeen maaha ummadda soomaaliyeed ugu qiimo badnaydeen waa mas-uuliyad lagu ogaanayo waxa aad tihiin waa bayca codka aad dhiibaysaan waa bayca alle aad la gelaysaan ilaahay dadkiisa oo mas-uuliyaddaasi hoos tegi doona baa idinku ah inaad maantay ka talisaan labaad noqonaysaan markaad ogaataan ina aladiina yubaayicuunaka inamaa yubaayicuuna allah dadka codka ridaya codka alla dartii bay u ridayaan maxaa yeele mas-uuliyadda la qaadayo makhluuqii allah laga qaadaya dadka in si wanaagsan loo agaasimana waa sidii alla rabay in la khayaanayo oo la istiqlaalo oo si xun loo adeegsadana waa sidii alla uusan rabinin maxay noqonaysaa marka labo faman nakatha fa inamaa yankuthu calaa nafsih waman awfaa bimaa caahada calayhi allah wixii alla kula ballamay qofkii oofiyana fasayu'tiihi ajran cadiiman waa aayadda 10aad ee suurat alfatxi ka mid ah codayntu inay sidaa tahay maantana idinka marti idiin tahay baycana islaamka ku tahay qofka beecada ridayaana uu alla la baayactamayo dadka mas-uulka laga qaadayana dadkii alle ay yihiin in la hagardaameeyana alloo meel looga dhacay ay tahay arrintaasi ha noo caddaato qodobka labaad الرشوة ولالوش لالوش يا بحية قفبا بحية يا قاته قفبا قاته قفك بحنا النوع وياي مهم ماها قفك قادنا النوع وياي مهم ماها دينتي مهم ماها وجدد أصعد مهم ماها مالكو بحنا ومال عنكاء مهم ماها إن اللالوش بحصو أما اللالوش قادتا وشهادة الزور ومخاطب بينالي حاد لالوش بحنيسا هدي آد كوكل صونتهاي إن آد تهي قفك مناسبك حاد لالوش قادنيسا هداد كوكل صونتهاي إن قفك لآمني أو مدو الدورتي أدي لأويهاي قفك السحدانا أدي وأدو الدوريسي حادو قادنيسا ومخاطب بينالي شهادة الزور هو لعتان إفر مرخاتي إن أنا هاي قفك تلاذا أمدا مدن إسي لعتان أن سبين كوغو مرخاتي فرو إن أنا هاي قفك مدن تلاذا أمدا وشهادة الزور صافي مرت الله محير سبحانه وتعالى وآياتها تضواتني اللبو إلى تضواتني أفر سورة فرقان أفرس حيكو بلا من يساعد إلهي مركو تلمان تددك مؤمنين أو فن تلمامي والذين لا يشهدون الزور وقوة مرخاتبين لها أن كعنين وإذا مروا باللغو مروا كراما هذي حمان إيميل لغوها حتى أي صومرانا أيغو خيغ يغصونا أو شرف له أو هفن بي أجمران والذين لا يشهدون الزور
labada gole oo Soomaaliya ma waxaad doonaysaan inaad noqotaan walladina la yashhaduna az-zur wa idha marru bil-lagwi marru kiraman soo dareemi maysid haddaad doonto hadalkayga khilaaf soo dareemi maysid ninka lacag kuu keenay oo ku yidhi cod isii inuu kaa doonayo markhaati beena soo dareemi maysid ninka lacag qaatay oo ummadii shalay aamintay oo ku aamintay inuu hoggaan saxa u doono inuu markhaati beena gadanayo maxkamadaha la geeyaa dad lacag la soo siiyey si ay markhaati beena u furaan maxkamad baa taagan tihiin ummadoo dhan baa idin markhatiya waxaad markhaati furaysaan yaa maantay xaq u leh inuu ummadda Soomaaliya hogaamiyo abaarta dhibaatada halaaga waxa dhacaya u ka saar markhaati beena weeye wadaad baa yiri lacag kala qaata cod kala dhiibta lacagta awalba ummaday ka dhaceen waxaasi fatwa ma aha waxaasi sax ma aha waxaasi qof xishoonaya wax uu ku hadla ma aha ما بنانا شهادة الزور أكبر الكبائر بكمدي شهادة الزور هذا الشرع كبر الكسرين قف كما دحني مدى الدون أيو هذا كبر الكسرين ولا لها إلا مدى القلو لا نشكوا شهادة الزور وعوها وراه دي النبي لقى صوري لعن الله الراشي والمرتشي لعن الله متقانا إلي بحنت إلهي الله ديريو وديرو ربي با ديريي لبدا قولي وما أنت آن مرتدى قلنا هاي قاب كي دوننا كوي مادان وحي خطر وجران إنو إلهي ديريو وربي تكورو هذا يعطك وضلالوشكو قاتا ودنين وورقد فرن وأراه باقة ولكن علي إذن كإيمانيسا تاريخنا من خاطبين غضونتا قضب كصدحات ورقدي عضينتا دعانتا كويسا لبعض بالله آديسا مركا آد لا آدو ماشا خلدن أما العاقي هكو جيسو أما قبيل هكو جيو أما كوحيسي هكو جيو صندوخة قلدن iyo tigta khaldan marka aad la aado waxay noqonaysaa adoo garanaya in laga mudan yahay waxay noqonaysaa waxa islaamku u yaqaano kitmaanul xaq xaqa ama jarta ama dawga oo la qariyo xaq oo la qariyo muxuu alla ka yiri intaanan taas u gudbin shahaadatu zuurti hadda aan hadal haynay dambi ahaan waa noocee ayaa hilmaamay u fiirso الله محيي سبحانه وتعالى وأقيموا الشهادة لله مرخاتيغا ربي درتي أفرا هنا قرننا وقفكي مرخاتيغا قرية يا رب ما حدا عايا فإنه آثم قلبه قلبي سادا بابي دشوا تقول حوي لبس كيسوا أسابوي وهجاكسي يعني درب الجيف معها عيال سوق وماكا فإنه آثم قلبه دنبيضه واللبو آثام القلوب وآثام الجوارح آثام تجعمها لقدم بابه أو فعلنا لقدم بابه والضمير لقدم بابين وحقران كعبرة والذين اجترحوا السيئات حمانته وحيقسم من الجوارح آثام تكواس كسي ليتنا وحو الله كعبريا ومن يكتمها مرخاتي وقرنا يقف كقرية فإنه آثم قلبه سريرت مركو قلابتو نفتي سيئو هيدار تينيسو سيئو عنانيسو سيئو شيريسو عجيب شهادة زوركم مركوا فإنه آثم قلبه وقلوب تدنبق قلبك لقدم باوي أيضا أولي ذاته marka laaluush qaadatid qalbigaad ka dambaabaysaa waa laga yaabaa in jeebkaagu qoslayo waa laga yaabaa dadku inay ku arkaan adoo wax wasakha wajiga iyo gacmaha kaaga ool gacantaad ku qaaday wasakh yeelan mayso laakiin qalbigaad ka dambaabaysaa damiirkaad ka dhimanaysaa ربي واكو أركيا ومدنا تاريخ بقريسا فإنه آثم قلبه وأقيموا الشهادة لله ربي درتي من خاطئ أفرا فوق تاريسا ومن خاطئ قفكي قرينا ومن يكتمها فإنه آثم قلبه قلبه يساتم بالي قلب صدح بوجود بيا مركز ماشي قلدن لآدو وحي سوق ليس من باب كتمان الحق حق قريسه
وادرنيسا قفكي دوغا أها قف كلا عد تسيس حقي بتقرسوي حق الله قري الله محويلي في آية القرآن وآية بقول تضبطني أفر سورة البقرة ninkii doonow oo labada gole kamidow dib u mulcso muslimiin baatiin diinta la taqaani in alladina yaktubuna ma anzala Allah waxa ilaahay soo dajiyay oo cadliga iyo cadaalada oo runta waxa la soo dajiyay wal cadaalada wa sidq waxa u daliila alla wuxuu leeyahay وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وحا الله سودجي وحي كو غبغبوبين وحي كو ابيوبين وحي كو كمان وحي كو ادلادين وحي سوسو بيشبتين وحي كبي دعين صدقا وعدلا رني عدالة إن الذين كوي يكتمون قرنية ما أنزل الله وحي الله سودجي كو قرنية حا إيمانية ويشترون به ثمنا قليلا كتابك الله وحكسه الدجيي أورنت إي عدالته ويشترون به ثمنا قليلا. This is the point. ويشترون به ثمنا قليلا لعق يربيك بسنيا إلهي محولي سبحانه وتعالى أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار وحي علوش الدنيا والنار وحي قادنا وحاران ummadda amaanadeedii kuwa ku aaminay amaanadoodii sharaftaadii magaca aad leedahay aad labada gole ku huwan tahay aaminaadda alla kugu aaminay mas-uuliyadda dhiibashada shacabku ay ku dhiibeen wayashtaruuna bihi thamanan qaliilan oo lacag yar ku iibsanaya alla muxuu leeyahay ulaa'ika maa ya'kuluuna fii butuunihim ila annaar كواسي وحي على شهود الجنة والنار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم عجيب واكا قلب كصدحات واكا مركز عدكا غلاء دميش قلدم مصير كاغواكاس الدون كلام حا إيمانية الدون كلام حا إيمانية إنا نكتين برينو كوي يقول لي تي أو ترى صومالي صومال حيمانتي مرحلة أي دتكم مريان مرحلة كلا دعوي حراد ميلو دينتو على وجه هذا الأرض صوماليا كجيتا دتكودو بدها عنان وعندنا يسويدين صوماليا كجيتا دتكم النان ويلشوا ده أي حبسية الليبي عربتي الليب يقول يوروبي نوت أمريكا oo ku baabeen ay Soomaaliya ka jirta marxalada maanta la maraya ama hoog baa loo guuraya ama hodanimo iyo hooda iyo ayaan baa loo guuraya idinkeeda ku xiranta qodobka afraad markii aad codkaaga meesha saxda dhigto wuxuu noqonayaa cahdigii aad gudatay oo fiirso waa aayadda 91 ee suuratu nahl وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم قلت بلنت الله هداد بلن قشان ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها نارتنا مركي ليدن كؤتي كذب هبرنا وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إلهي بعد من خاتق لسان الله أذانك مسؤوله الله أذا نجمر خاتية الله أذا نجو أمانة أذا أمانة نوديبتي وما ظهرت أذا تقابني إن الله يعلم ما تفعلون الله وأجيه وحاسمين إنسان أنكو علي آيات وأوفوا أوفيا بعهد الله إذا عاهدتم أحدق الله أوفيا هديات بلنقشا ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها نارنا مركل أتي أمام الناس لبقي 8 مليون لحقي 8 مليون وحوض لها هذا تركوبك السحدة هرطولا تدارتين كتابك الله نقول دارتين وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إلهي بأننا مرخاتك جلسين إلهي بأننا نغم مرخاتية ربي بأننا نغم مسؤولة إنا ندلك إيا دنت إيا دينت إيا كبين شيغي وأنو أبيغينا تنهضي أفرتاس هل كاسر وبحيا عضينتو وحيا هيد بيعو
laaluushku wuxuu ahaa markhaati beenaale codka oo aad meel khaldan la aadaa waxay ahayd xaqa aad qariso codka saxda oo dhibtana wuxuu ahaa caadiga allood oofiso qodobka shanaad marka qodobka shanaad idinkuma socdo qodobka shanaad wuxuu ku socdaa shacabka Soomaalida shacabow Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku leeyahay man ya'mal su'an yujza bihi qofkii xumaan sameeya waa laga abaalmarinaya haddaad qofkiina xun ayda inuu xun yahay u sheegin haddaa kii shalay idin xaday waana xaday ayna oran haddii kii idin dilay waana dishay xataa aydan oran karin soo dhici mayso midka idin dilay inuu meydkiina ku dul istaago kursi ku gaaro soo dhici mayso midka idin xaday wuxuu idinka xaday inta codad ku gato in wax ku noqdo soo dhici mayso inta idinku dulisan inay waliba idin dul joogaan muhaasaba loo baahay soo xisaabtana waa xisaabtami karna awood baan leenahay shacabka awood buu leeyahay ardadu awood bay leeyihiin dhalinyarada awood bay leeyihiin fanaaniintu awood bay leeyihiin hooyooyinka awood bay leeyihiin saraakiisha iyo ciidanka qalabka sida awood bay leeyihiin ma rabno qof xun haddaan idhaahno wallaahi baan ku dhaartay kan la soo doortaan cayrsan karnaa hadduu xun yahay laakiin haddaan idhaahno waxa weeye haddaanu sidaa sax u fahansannahay hadda qoor baan ka hadlay waxaan idhi siyaasadda Soomaaliya waxaan uga caadanahay inala ka caqli badan yahay inala ka aqoon badan yahay midna maaha waxaan uga caadanahay asalkay ku dhisan tahay baa xaaraana waxay ku dhisan tahay aan maal lahasheena maandeeq waxay ku dhisan tahay qaran dadkiisii baahan yahay aqoon daadsan dad tahriibayaal oo daadsan abaar oo haddana la sii lisayo bay ku dhisan tahay maalinta lagu dhiso aan daajinna hasheena maandeeq oo ay noqoto inaan u shaqeeyo oo cawska u soo guro oon u haraado oo anigu aan voluntary ahaado maalintaas siyaasaddu noo qalantaa maanta nooma qalanto laakiin shacabka waxaa hor yaalla xoogagga shacabka waxaa hor yaalla ciidanka qalabka sida waxaa hor yaalla hooyooyinka waxaa hor yaalla abwaanadii fanaaniinta waxaa hor yaalla dhalinyarada waxaa hor yaalla علماء الدين توحى هريانا انت حشونا يسوى هريانا صومالي والبع لكن كودونو إيه الدين تودونو إيه هدوه دونو إيه منبكو دونو إيه قبل كودونو ها صومالي والبع عيدة ولا شيء وإيه لسمية عيدة هرتي سمان توحى يالا إنو سيدا قلدن ديدو إنو ديغيعب كديدو إنو توجد ديدو أود علينا هيوي عدنا عدك التمالي داد أمانا نلمد باودوين كسيحضي oo ku kalifay kuwii madaxda u ahaa inay ayraboorada ka dhoofaan markay waxay qabtaan garan waaye wadooyinkan tumanayna jidadkaan seexanayna mudaharaad baan samaynayna annagoon xabad ridin baanu boorar soo qaadaynaa aan leenahay dhiigyacab baa tahay ku yeeli mayno tuug baa tahay ku yeeli mayno qofka fiicanna waa taageerayna wadada saxdaa baan maraynaa dhiig daadin mayno جعيل ويا أود يدو our power is love أود جعيل كحق بدن وحول بعض إفتين كحق بدن مقدقة جعيل كحق بدن نعيبك عفين كحق بدن أرسقة رنت كحق بدن بنت أنت سانكوها والجلينا وكذلك تمت كلمة ربك صدقا وعدلا إله يا ربي والنجدة اللهم إنك ترى ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على هؤلاء إلى من تكلنا إلى قاتل يقتلنا أو سارق يسرقنا إلى منها نوديبي ربي وأمد قفك وهبون لبدا قولي أو ولا لهينا أو أن شعل لهي أو أنه أن دورني قاب كان دورا وأن كل دورنو ما أنت مسؤولية دي هيا وأقول لهي وأنا أقود عينينا وأقول شعل لهي نعيب ما آمن سنين وأقود عينينا هبار ما آمن سنين ربي وافجي إلى أمد الدوران قفك وهبون أو حقني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.